السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذن سلامي دمان أخيارتا كحران يوتيوب مع العقال كسو دوادا مقال كلا أو حيصالي أو كسابسان حدك أودحيايا هقامياشا إيا اللي هقامياش أخياري بريقي هوري مركي سوماليدو أي دورانا هايان هقاميا دقاميتك وحي أورانشيرين سيفوين كان أي حكو دورانشيرين nin doofaarka ay uga adkaysi badan dhagaxana qabow uga adkaysi badan kortiinna qodax uga adkaysi badan kudkudana gaajo uga adkaysi badan maalin kasta ayaan isweydiinaa dalkeenu goormo ayuu heli doonaa hogaamiye wanaagsan waxaan kaloo isweydiinaa anigu ma waxaan ahay hogaamiye mise la hogaamiye maamaha Soomaaliyeed ayaa ahayd tala keen ahow ama tala raac ahow ku soo dhawaada YouTube macal cigaal barta baraarujinta bulshada akhayri hogaamintu ma wax ku xiran dhaqaale ama jago sida kale ogaanshiyaha inaad tahay la hogaamiye ma ahan wax xun ee liita waxa weeye in adiga oo la hogaamiye ah aad iska dhigtid hogaamiye inaad iska indhatirtid talooyinka ay ku siinahayaan dadka aragtida leh ee hogaamiyaasha ah in aysan oraahdooda iyo kelmadaha ay kugu dhiirigelinayaan aysan wax micno ah kugu fadhi oo markasta oo ay wax ku sheegaan aad tiraahdid ma waxaas aniga iga dhigaysaa wax cusub waan aqaanaa inay sidaas iyo sidaas waxaan u baxshay arrinka noocaas ah boor isku qaris qof aan doonayn weligiis inuu xaqiiqda nolosha taabto qof aan doonayn inuu weligiis horumar sameeyo qof isku arka inuu wax kasta yaqaan waa sida bulshadeenu maanta ay u badan tahay waxaan halkan kugula wadaagi doonaa 5 qodob ay ku kala duwan yihiin hogaamiyaha iyo la hogaamiye qodobka koowaad hogaamiyuhu waa mid garanaya naftiisa waxa uu si fiican u yaqaanaa hadafkiisa waxa ay tahay in uu qabto fursadaha uu haysto caqabadaha ku horgudban waxyaabaha uu ku fiican yahay iyo sidoo kale waxyaabaha uu ku liito caadooyinkiisa iyo dareenkiisa dal dhaqanka iyo sida ay dadku ula dhaqmaan hadii aan tusaale soo qaadano waxa ogeedeen sanadkii 2022 intii lagu guda jiray waxa dhimatay boqoradda Ingiriiska Elizabeth barordiiq loo sameeyay waxa lagu martiqaaday dhammaan madaxda caalamka amar ayaa duldhiga waxa la yiri ilaa laga reebo dhowr madaxweynayaasha imaanahaya ka qayb galahaya aaska ama barordiiqda loo sameeyay boqoradii hore ee Ingiriiska lama soo gali karaan wax waardiya ah garoomada marka laga reebo dhowr madaxweyne markay halkaas marayso madaxweyne Erdogan madaxweynaha Turkiga isla markii wuxuu go'aansaday inuu ka qayb galin shirkaas waa maxay sababtu shakhsiyadiisa iyo karaamadiisa iyo midda dalkiisa ayaa la rabay in meeshaas lagu liido in laga kormariyo wadan kale madaxweynihiisa ee loo ogolaado inuu waardiyiisa iyo baabuurtiisa dadkiisa uu la tago meesha asagana laga dhigo qof shacab ah isla markiiba wuu fahmay in shakhsiyadiisa aysan u qalmin arinta noocaas waxa kaaga sii daran qisadii meeshaas ka dhacday dhammaan madaxda Afrika inta la sugay ayaa hal bas lagu aroori inay waardiye la'aan mid u galaan iska dhaaf inta ay garmal isku soo aroori isku sugay ayaa isku hal bas lagu aroori waxaan kaloo tusaale u soo qaadan karnaa oo markasta aan maqalnaa qof shakhsiyadiisa kuwa shakhsiyadooda liiday iyo kuwa shakhsiyadooda kor u qaaday waxa kamid ah waxaan u badanaa maqalnaa shirka Afrika iyo Mareykanka waxaan kaloo maqalnaa shirka Afrika iyo China waxaan kaloo maqalnaa shirka Afrika iyo Ruushka sabab wadan iyo qaarad isku barbardhigayaan waa maxay sababta uu isku gaarsiiyay Ruushka ama China ama Mareykan ay isku gaarsiiyeen ayagoo hal dal ah in ay la shiraan qaaradan oo Afrika qodobka labaad ee lagu kala garto hogaamiyaha iyo hogaamiyuhu wuxuu noqonayaa hogaamiyuhu waa mid geesi ah dhiiranaantu ma ahan sifo cid walba laga heli karo hogaamiyaashu waxa ay ku dhiiradaan inay wada cusub oo aan cidna uga horreyn jeexaan waxay awoodaan inay wajahaan caqabad kasta iyaga oo aan cidna dhiirigelinin dhiiranaantu waa hanti marka laga hadlayo hogaaminta waatu hadraawi heestii hooyo ku lahaa ku markii la gaaraba kullabaad hilaabsho kala haga dhashaaba hooyo lagu xasuusta akhayr qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa hogaamiyuhu waa mid firfircoon dadka leh sifada hogaamiyaasha inta ay meel fariistaan kuma sugaan fursadaha cagahooda ayay ku baadi goobaan jaanisyada ay heli karaan howl kasta oo ay qabanayaanna waxa ay u qabtaan sida ugu wanaagsan aan tusaale ka soo qaadno ra'iisul wasaarihii dalka Malaysia Mahathir Mohamad ra'iisul wasaarahani waxa uu jagada wadanka qabtay iyadoo Malaysia cidna garanaynin iyadoo dhaqaale ahaan u burburtay dawlad ahaan u burburtay wax laga garanayaan aysan jirin maantana waan fahansanahay halka ay gaartay Malaysia waxa Malaysia maanta tusaalaheeda inay maanta ay tahay dal muuqda oo dhaqaale ahaan muuqda tusaale waxa halkaas gaarsiiyay
وهجامنتي مهاتير محمد قولكنا أفراد الوكالة قرنها يا هجاميها la hogaamiyo wuxuu noqonayaa awoodsiinta dadka aan lahayn sifada hogaamiyaha ma jeclaystaan guulaha dadka kale ay gaaraan mana awoodaan inay ku dhiirigeliyaan dadka kale ay soo bandhigaan awoodooda taas bedelkeeda hogaamiyaha dhabta ah waa mid ku farxa guulaha dadka kale mar kastana maanka ku haya in dadkiisu ay kor u kacaan oo awood ay helaan waxaan tusaale u soo qaadan karnaa madaxweynihii Brazil Lula da Silva ninkan wuxuu jagada Brazil qabtay iyadoo Brazil burburtay oo dhaqaale ahaan u burburtay oo koox taajiriin ah ay wadanka iska haystaan oo sida ay rabaan ay ayagu dhaqaalaha u maamulaan wax alla waxay rabaan wadanka keenaan wax alla waxay rabaan ay diidaan wuxuu ahaa nin ku soo barbaaray faqiirnimo oo soo maray caseeye isla markiiba wuxuu dhiirigeliyay in dadkiisa la awood siiyo isla markiiba wuxuu ku dhaqmay awoodsiinta dadka kale in dadka faqiiriinta ah laga faa'iideysto oo ayaga awood la siiyo wuxuuna fikrad ahaan aaminsanaa oo mar kasta dhihi jiray kici oo shaqo gali fuqarada iyaga ayaa kobcinaya dhaqaalaha dalka akhyaari qodobkeena shanaad ee ugu dambeeya aan ku soo koobeen wuxuu noqonayaa hogaamiyuhu wuxuu leeyahay tawaaduc hogaamiyaashu ma ahan qaad iyo iskibrin badan haddaad aragtid qof mar kasta oo dadka u sheekeenaya dhahaya aniga ayaa waxaas ah aniga ayaa waxaa sameeyay aniga ayaa saas ah intaasoo darajo ayaan gaaray haddii aad aragtid qofkaasi ma ahan qof hogaamiye sheekadii aan kula wadaago ahayd Nelson Mandela tawaaduc wuxuu ka gaaray 27 sano ayuu xabsi ku jiray maalintii loo doortay madaxweynaha dalka South Africa ayuu asagii iyo askartii wuxuu yiri iyo asxaabtii ku hareersanayd aan maanta magaalada ku soo qadayna ku soo damaashaadnina keen meel maqaayad ayaa la soo galay maqaayada markii la fariistay miiskii cuntada la dalbaday nin ayaa geeskaas oo kale cunto ka dalbaday alla markii ninkii cuntadii loo keenay oo Nelson Mandela soo galay ayaa ninkii waxa la arka jaraynaya asagii dhamaa cuntadii cunay la gacmihii iyo wixii dhamaa afkii iyo wixii dhamaa isla saas u jaraynaya dadkii dhamaa la socodhaas ninkii u fiirshay waxa ninka waa jiray waa xanuunsan yahay marka hadhow la sii baxayay ayuu Nelson Mandela wuxuu yiri ninkaas cuntadiisina noogu dar iyo teeniba anaa wada bixiyay waxay yiraahdeen wallahi madaxweyne si fiican baa sameysay nin xanuunsan ayaad cunto ka bixisay ma ahan ninkaas inuu xanuunsan yahay cabsi aniga uu iga qabo ayuu saas ula jaraynaya wuxuu ahaa buu yiri dadkii xabsiga ugu waadiin jiray ayuu kamid ah suu ii garaacay ninkaas wuxuu ii garaacay ayaa inta ooma waxaan dhihi jiray biyo u baahana biyo mar alla marka iraado biyo ayuu inta jinyeerka furto ayuu ugu kaadish jiray ayuu wajiga kaadi iga shubay laakiin wuxuu yiri maanta maskaxdaydu ma ahan maskax aarsima waa maskax wax dhisid maxaanu sameeynaa hogaamiyaasheena shantii sano markii laga bedelo kuwii kale dabcan waxa dhacay wasla garanayna kuma eka halkan shantan qodob kuma eka sifooyinka ay leeyihiin hogaamiyaashu usbuucda insha Allah taala waxa dhici doona seminar ku saabsan xirfadda hogaaminta intaan iyo in kan badan ay leeyihiin hogaamiyaashu laakiin waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo sifo kasta oo laga sheego qof hogaamiye ah waxa iskala nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam ila muuqaalka dambe assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala barakatuh inaad muuqaaladeena si bilaash ku daawatid waa mid aan ugu talagalnay oo waqti badan gelinay laakiin inaad hal subscribe nagu caawiso waa mid qaadanaysa wax ka yar hal second